Fadxiya Yaasiin Buuni waxay ka mid tahay haweenka dhalinyarada ah ee ku dhaqan magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal waxaana magaalada ku leedahay goob ganacsi oo lagu maydho gaadiidka waana goobta lagu magacaabo Lucky Star Car Wash. Fadxiya Lucky ayaa waxay nooga waramaysaa sidii ay ku bilowday hawshani ganacsiga ah ee ku aadan maydhida gaadiidka noocyadooda kala duwan waxaana xusid mudan in Fadxiya Lucky ay sidoo kale tahay wariye ka tirsan warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Fadxiya Yaasiin Buuni waraysi aan kula yeeshay magaalada Boorama ayaa u dhacay sida tan كدي أدي أدبض مع سنتاي مقعي وفرحية لكي ياسين بوني إن لما كنا واحد لها لكي ستار كار واش وحنا كنت على جدها مقالة بورو ما خلاص يسعد الجامعة عمود عيد كستو دلحيس تجيسان وحي سيارة تال لما كذا قف كستو بور كسر على جامعتنا وحو كم يدال لما كذا لكي ستار لما كذا ني أنا ضل كيجي كتهريبين أنا ندرس شيء آدين أنا العقد بد كتمدي على الاستعمالين أيان ضل كيجي هرتك الشقيستي كدمنا أنفرتك أنا عسى أنا نروح روليه كل كاجينا دائم تاوي في عنتان إن horta mar walba bariga hore waxa la oran jiray habluhu shaaha ma cabaan shaaha la xijeclaa shaaha u qabaan rag ayay dumarku u oran jireen shaaha ma cabaan shaahu soo ugu haro oo inantan dhan ee shaaha guriga lagu kariyay iliyaa la oranay ma cabaan in shaqada habluhu ma qabtaan shaqada ragga war maxaa ka hor taagan baa meesha taala ilaahay haduu lixdii lixaad u dhamaystiray qofku haduu nuuciyaan ilaahay ka dhigin haduu lixdii lixaad qabo haduu socon karay haduu wax maqli karay haduu shaqaysan karay waa inuu dalkiisa iyo dadkiisa ka dhex shaqaysta intuu dhoofayo uu tahriibayo uu dhul shisheeye tagayo uu gidaarada meeray uu baabuurta meerayo anoo dalkayga baabuurka ku meeray dhaanta oo Fadxiya Lucky leedahay waa magacayga la garanayo aabahay baa la garanaya awowgay baa la garanaya dhulkaygii baan joogaa ciidaydii baan joogaa cid iyariisa ma jirto cid wax ii sheeganaysa ma jirto dhulkaaga inaad aamintid oo shaqaysatid adoo gabadha waxba ka hortaagan bilowgaygii waxaan bilaabay kamarada saloodu daadaa booriyaha kow wadliyaaba jirtay waxa la oran jiray Fadxiya Lucky may waalantahay markay kamarada duubayso laakiin waniga ku caalmaale dalkayga ka shaqaystay ee horumar isgaarsiiyay naftayda horumar gaarsiiyay ee hadda ah wariye TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan isku dayay inaan ganacsi samaysan karo inaan sida ragga u shaqayn karo raggi waxba kaga dumarniyo inta dumarnimada waa inaan la leeyahay mooyaane inantaan wax badan baa kugu naxayo jaanis badan baa helaysaa inanta inta la leeyahay jaanisku si badanayaaba waa hagaag meeradan Lucky Star Car Wash shaqaalintii leeg baa ka shaqeeyay shan baa ka shaqeeya waxa ka shaqeynaya saddex dumar iyo muxuu ahaa laba inamood saddexda dumar aniga ku saddexa in hablihi way aamin waayeen dalkoogii qaar baa tahriibay in waxay u haystaan in dhulka ay tagayaan ay wax ku soo faa'iideeyaan laakiin dalkoogii dadkoogii inay ka shaqeystaan taas fikirkaas dadka wali ka duwan oo aan wali soo gaarin hablihi tii eribe horta habluhu sidoo bartaan sida wax loo qorun bay bartaan umada sideeda waxa ka dhiman bartikaal shayga aad ku qabataa waliga ma iloobaysid laakiin hablahan wada jaamacadaha ee quruxda badan leh ee quruurada waxaan kula talin lahaa inay shaqaystaan oo dhulkooda ka shaqaystaan oo waliba ay theory wax ku bartaan bartikaal wax ku arkaan intaas ana hablaha kula talin lahaa waliba habluhu sideeda waxa jirta habluhu marka ay la guursado in calafku wahalkiisa dee wax muxuu khayr qaba iyo wax shar laba inta badan way la kulmaan laakiin furitaankiina way nagu sii badanayaan hablihii waxay shaqaysanayaan maalinta la furo waa la furay koodanta fadhibay ma yaalo markaas ay shaqaysanaysaa laakiin hablaha waxaan ku sii baraarujinaya war ka hortii shaqaysa bal adoo wax bangiga ku yaalaan xitaa dad kiiba calaf ilaahay kala kaxeeyo waa inaad wixii soo saarataa ان daawadayaal sida aqliga leh ee ku dhisan fikirka saliimka ah ee ay noo sheegtay Fadxiya Lucky runtii waa mid aan anigu bal la dhacay shakhsiyan laakiin leemaachada inantu waa mid kamid ah leemaachooyinka caanka ah ee magaalada Boorama inta badan gaarigayga ayaan ku soo maydhaa gawaarida dadka kala ku maydha shaqadu waxay u baahan tahay bilow iyo furfurnitaan shaqadu ma aha mid iyada ku imanaysa waa mid aad adigu doonayso Soomaaliya waan horta qabataa kartiba la imanaysaa iyo awood iyo caydii dadkoodu adkaysatid iyo hanjabaad iyo buuq iyo maxay naagtu sameynaysaa waa inaad u adkaysataa laano qofkan uun baa meel gaari kara buur baa ka hormarsaa buurtaasi waa inaad maalin kaliya wada karaya dad tiraad waa mushkilad ma wada kari kartid laakiin maalinba in yar waa inaad kartaa laano waxaad gaaraysaa guushu halka u sareysay taala guushi baad gaaraysaa waad shaqaysanaysaa Allahu yaclam ilaahay wuxuu ku qoray inaad qaadaysaa gabagabadii maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada ragga hablaha inta badan yiraahda wadankii shaqo ma taalo maxaad ku wacyigelinaysaa maxaad kula talinaysaa anu runtii horta aad baan ula yaabaa qofka yiraahda dalkayga shaqo ma taalo war baalash la yaala raggu baalash la ku shaqaysan karaan
habluhu guryaha ka shaqayn jiraan waxa la siiyaa $50 baa la siinanta guriga ka shaqaysa inanta xafiis joogta waxa laga rabaa horta tababar inay qaadato oo practical shayga lagu arko shaqadaadu ma nacajibsa meesha taalo sidii siyaad baraa la sameeyo hal sano oo tababara shaqa muxuu ahaa ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa oo dhan waxaan ku codsan lahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in hal sano bal shaqa dadka inta leega soo baxaya ay volunteer ku shaqeeyaan dalka inta leegu dhismilaha dadka inta leeki maskax iyo aqli qaarba waxa leeyman lahayn wax cusub fikir cusub laakiin dalka shaqa ma taalo dul shisheeyaan tagaya oo isdilaya waalibaan aqana waxa warda umadani dalkooga inay aaminaan baa u khayroon maadaama ay dhalinyar yihiin inay dalkooga aaminaan oo ay ka shaqaystaan oo wax qabsadaan ayaa fiican dalkina aaminaa oo lahaynta dal shisheeye aadaysin shaqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga ah ee qofka uu baahan yahay inkastoo dhalinyarada intooda badan ay ka cabanayaan shaqa la'aan ayaa jirta ayaa Fadxiye Laki waxay ku doodaysaa in shaqadu ay tahay mid iyada aad abuuran karto waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Boorama